kulanti wacan haddana dabashana qiimaha badanna mar kaleba soo dhawaada wararka isdaba joogga dabashana qiimaha leh dowladda Pakistan waxay gaadhay go'aamo waaweyn sidoo kalena waxay soo saartay hadallo adag oo hanjabaad ah kuwaasoo markii ugu horeysay muujinaya in ay garab istaag ay u falkinayso wadanka Iran markii ugu horeysayna waxa ay qaaday tallaabooyin kale oo cirka kusii shareeraya dhaqaalaha adduunka Shiinaha ayaa isaguna cartamaya in marba marka ka dambeysana qaadaya tallaabooyin la sheegay inay halistooda ay leeyihiin tii oo ay sii dheer tahay ayaa la yidhi in ay ka baqanayaan in wadankooda dhaqaalihiisa si gaara loogu soo duulay sidaa daraaddeedna waxay rabaan inay dhowr arrimood ay sameeyaan. shirkadda ikhlaas alxaaj waa shirkad weyn oo ku caan baxday adeegyo heer sare ah iyadoo ka caawisa bulshada inay u soo cumreeyaan waalidkood iyagoo dalkooga jooga. adeegan waxay shirkaddu kuugu filin doontaa si ammaano leh ilaah ka cabsi ku dhisan iyadoo camalkaas lagugu qaban doono si daacadnimo iyo hufnaan leh. shirkaddu waxay ugu bishaaraynaysaa bulsho weynta ku dhaqan guud ahaan dhulka Soomaalida in bisha Ramadaan shirkaddu ay samaynayso qiimo dhimis aad u ballaadhan. haddaba ka faa'iidayso oo wixii faahfaahininta dheer kala xidhiidh lambarada hoos ku xusan ama shaashada kaaga muuqda. wararkaas iyo kuwo kale dabashana qiimaha badan ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda ee duqeynta weerar iyo weerarceliska ee Iran iyo wadamada reer galbeedka wadanka Mareykanka adhaho iyo Israa'iil ayaa sii socda iyadoo oo ay xaaladdu u egtahay inay sii adkaanayso waxaana la sheegay in marba mar ka dambaysa weeraradu ay sameeyeen kuwo kala go'aya. dowladda dalka Shiinaha ayaa sheegtay in ay joojisay qaybo badan oo kamida ayaa la yidhi in markaasi hawlihii dhinaca soo saarista shidaalada ay ka waday tallaabadan ayaana loo arkaa mid ay ku qanintay iyadoo dalka reer galbeedka shirkadaha dalka Shiinaha ee ugu weyn ee wax soo saarka ee Petrochemical Corporation-ka ugu weyn ee loo yaqaano Xinjiang ayaa ku dhawaaqday inay joojisay dhowr xarumood ay ka waday shidaal qodista ama shidaalka sifaynta ama soo saarista shidaalka dhurista oo ay ka wadeen injineeradoodu gaar ahaan shirkado ku yaala Saudi Arabia kuwaasoo maalintii soo saari jiray ilaa iyo 200 oo kun oo crude oil ah ama unityo waaweyn halkaas kasoo dhuri jiray. tan ayaana dhabarka kasii jabisay eelay suuqa xilli ay dowladda dalka Iran ay iyaduna ay sii adkaysay markaasi marinka loo yaqaan Hormuz. wararka ayaa xaqiijinaya in ay dowladda dalkaasi qaaday dhowr tallaabood oo waaweyn. shirkado dalka Shiinaha ayaa ilaa 800 oo kun oo shidaal maalintii kasoo saari jiray xarumo kala duwan oo ku yaala bariga dhexe dhammaanna waxay sheegtay in ay joojinayso waxaana wakaalada wararka Reuters ay ku tilmaantay tallaabadan inay tahay mid kale oo Shiinuhu ay rabto inay ku qaarijiso ayay yiraahdeen isla markaana ay ku qaado wadamada reer galbeedka oo ay u aragtay in dagaalkan sababta ugu badan ee Iran loogu qaaday ay tahay in ayada lagu xumeeyo isla markaana Shiinuhu ay sameynayaan mid ku tagtid fortet taasoo loo yaqaano qaniya kaafajisa waana tallaabooyinka laga rabo inay dowladnimo ay qaado marka ay aragto in la qaninay dhaqaalahooda isla markaana waxay doonaysaa in aysan ciidana laba kululan oo haddii dowladda Sacuudigu ay joojin weyday shidaalka isla markaana ay sii wado weli in suuqa ay ku maashayso ceelasheeda kale waxay go'aansadeen shirkadaha Shiinuhu inay daba butaacinta shidaalka iyagu ay ka joojiyaan. tan ayaana loo arkaa qaniyadii ugu dambeysay. dhinaca kalena dowladda Shiinaha ayaa daba soo saartay go'aamo kala duwan waxay cambaaraysay weerarada Iran ka dhanka ah waxayna ku tilmaantay inay yihiin weeraro gef iyo khalad ku ah. waxay yiraahdeen markaasi wadanka Iran kana dhan ah ay yiraahdeen dhaqaalihiisa iyo sidoo kale gobonimada wadankaasi waxayna ku eedeysay Mareykanka iyo Israa'iil inay qori dable ay la wareegayaan. afayeenka wasaaradda amuraha dibadda dalkaasi Monin waxa ay sheegay in ay tani tahay shuruucda caalamiga ah oo lagu tuntay Iran gabi ahaanba arrimaha kala dhaxeeya waxaa lagu xalinayay ama lagu xalilaha ku olgoleed wada hadal sidaa daraaddeedna wada hadalkii in la yiraahdo waxaa lagu bedelaya qori dable ma aha wax aan qaadan doono isla markaana ma aha wax loo durbaantumo colaad waqtigan ayay ka digtay dowladda dalka Shiinaha ayaa eeg marbar ka dambeysay inay kusoo siqayso iyaduna inay tallaabooyin cadcad ay qaadato taasoo cirka kusii shareeri karta ayaa la go'aan qaadashada qaarkood. dhinaca kalena dowladda Pakistan ee maamulka gaar ahaan hay'adda garoomada ayaa ku dhawaaqday in qayb ahaan ay wadankeeda ay xiratay iyadana si hawada wadankaasi aan looga faa'iideysan oo shirkadaha kale isan uga faa'iideysan. tan ayaana ah dube kale oo madaxa lagaga sii dhufanayo ayaa la yidhi tallaabooyinka la yaab kale ee wadamada caalami islaami ay ku wada xidheen hawadoodii. hay'adda Pakistan u qaabilsan dhinaca hawada dhinaca maamulka garoomada dhaxo oo la yiraahdo Pakistan Airports Authority ama hay'adda maamulka garoomada diyaaradaha ayaa tiri waxa aanu ku qaadanaa tallaabooyin waxaana sii wadi doonaa ilaa iyo dhamaadka bishan March oo aanu filano inuu dagaalku uu sii weynaado. waxay sheegeen in ilaa iyo 150 markaasi duulimaad oo dowladda dalka Pakistan ay gudaheeda kaliya ka dhici jiray ay noqon doonaan kuwa la siiyo ruudadka muhiimka ah laakiinse dhammaan waxay yiraahdeen marinada iyo dhabooyinku waxay noqon doonaan kuwa laalan. tallaabadan ayaa loo arkaa inay Iran heel u tahay sababtoo ah tallaabo kasta oo wadan kasta oo caalam
islaamiya uu hawadiisa ku xiro ama ku ceshiimaysto waxay ka dhigan tahay ayaa layidhi mid iiraan lagu sii adkeeyey narratifkeeda ama sheekada iiraan ee dhinaca dhaqaalaha caalamka in cunaqabatayn rasmiya lagu soo rogo ayna noqoto tallaabooyin adag oo marba marka ka dambaysa markaasi ay noqoto dabcan mid sii soconaysa waa suu hadalka u dhigay sida hadalka dowladda Pakistan u dhigtay tan ayaa imaanaysa iyadoo Iiraan ay ugu ololeynayso in suuqa gabi ahaanba caalamka oo dhan la xiro dhanka kalena wasiirka gaashaandhigga ee awoodda badan ee dalka Pakistan oo isagu ah ninka ugu go'aan qaadashada adag ee wadanka isaga iyo taliyaha ciidanka qalabka sida la aaminsan yahay inay isla hogaamiyaan Khawaaja Caasif ayaa ugu yeedhay nidaamka sahanooniyadda in uu yahay mid bini aadanka khatar ku ah waxa uu yidhi nidaamka sahnooniyadda bini'aadanka ayay khatar ku tahay sidaa daraaddeedna dowladda Pakistan gebi ahaanba waxa ay si dhow ula socotaa dhaqdhaqaaqa fitanka ah ee ay ka wadaan dunida ayuu nidaamka sahnooniyadda oo uu sheegay inay tahay mid darsanaysa wuxuu yidhi ilaa iyo intii laga aasaasay dhulka Israa'iil wax loogu yeedhay ayuu yidhi Israa'iil ilaa iyo maanta oo aynu joogno waxaynu ku ilaawanaa buuri masiibo tuba ku ilo catastrophe ayuu yidhi ereygaas ayuu isticmaalay oo ereyga ingiriiska ugu adag ee marka laga hadlayo masiibo ama marxalad gebi ahaanba tuba ku ilo ayuu yidhi wuxuu yidhi masiibo ilaa iyo masiiro caalamka islaamka u timid ayuu yidhi dunidii islaamka maalintii lagu dul abuuray ayuu yidhi nidaamka sahnooniyadda 1948 ilaa iyo maanta ma aysan harsan lama degin lama horumarin waxba lama qabsan jaamacada lama dhisan wax wanaagsan ee dunidu ay gaadhay anagoo ah ayuu dalalka adduunka warinta iyadoo dalalka adduunka caalamka islaamka ay ugu dhaqaale badan yihiin haddana dagaal ilaa iyo dagaal ayay ku jiraan buur qalalaas ilaa iyo qalalaas waana kaan karo halkan gebi ahaanba la keenay tani waxay ku tusaysaa ayuu yidhi gebi ahaanba tanu in ay tahay ayuu yidhi nidaamkan ujeedada sahnooniyadda halkan loogu abuuray si toosa iyo si aan toos ahaynba in ideolojiyadda ayuu yidhi sahnooniyaddu ay tahay mid loogu talagalay masiibo loo soo diray caalamka islaamka isagoo dhinaca kalena sheegay in tiknolojiyadda hubka gaar ahaan nuclearka dalka Pakistan uu yahay mid lagu hareeyo doono isla markaa lagu difaaci doono caalamka islaamka tan ayaa ka dhigan markaa dowladda dalka Pakistan in ay leedahay waxaanu isticmaali doonaa hubka nuclearka in wadan kasta oo caalam islaami haddii loo adeegsado annana waa ku difaaci doonaa waana hadalkii iyo go'aankii ugu weynaa ay soo saaro Caasif ayaa ku dooday in gebi ahaanba ay jirto ayuu yidhi in ayada oo diyaar loo yahay buu yidhi oo wada hadal oo nabad la qaatay oo Iiraan ay nabad u tahay in ay nidaamkaas sahnooniyaddu ay go'aansadeen in weerarka la qaado dabadeedna hanta xarula noqotay oo arrintii dhiig ay meesha isku bedeshay wuxuu ka digay haddii wadamada caalam islaami hadeerta ay istaba qaba waayaan oo ay qaadi waayaan buu tallaabooyin wax ku oola oo ay naftooda ku xakameynayaan in ay noqoto xaaladu tan aynu hadda ka hadlayno ka daran tan waxay imaanaysaa daba iyadoo afyeenka aqalka Congress-ka dalka Mareykanku uu sirtii saddexaad ee mas'uuliyiinta sarsare ee Mareykanku ay falkiyaan uu sheego isagoo shir jirayd hayay ayuu wuxuu yiri markii Iiraan ay weerarka ku markay Israa'iil Iiraan weerarka ku qaaday Mareykankuna wuxuu ku khasbanaaday inuu isaguna uu weerarka qaado ayuu yiri haddaba dadka Mareykanka ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxay wadaan hadalka afayeenka baarlamaanka iyadoo ku sii daray xogaha arrimaha dibadda isaguna sheegay in ay Israa'iil ay dagaalka hogaaminayso haddaba arrintan macnaheedu waxa weeye in uu leeyahay afayeenka Mike Johnson uu leeyahay annaga Israa'iil hadday weerartay meesha annaga waa weerarayna marka dana Mareykan meesha laguma weerarinayna dal iyo reeraan iskala qaxnay sheekadii caanka ahayd ee Soomaalidii sponsorada la oran jirtay reeraan iskala qaxna oo kale ayaa markaas dadka Mareykanka ay yiraahdeen waxay yiraahdeen oo Israa'iil hadday meel ku duusho adoo ku duulaysa oo hadday wadan dhibaataysan sidaas ayay sheekadu ka noqotay isagoo shir Israa'iil hayay kadib markii la weydiiyay si toosa ee lagu yiri maxaa weerarka loogu qaaday Israa'iil baa weerartay wili meesha annana markaa inaan weeraray noqotay arrimuhu halkaas marayaan Pakistan warkeedu halkaas maraya tanina waxay cadeynaysaa in marmar ka dameysa ay soo baxayso oo markaasi arrinta mid ka duwan tan kale cadeyn waxay u tahay Pakistan go'aankan ay qaadatay yaan jawaadan soo saartay in Sacuudiga aysan sahlanayn marka inay dagaalka ku biiraan iyagoo Israa'iil iyo Mareykanka la safanaya waayo Pakistan oo heshiis military kula jireen ayaa halka taagan oo warka cadeysay iyo meesha sarta ka qurunsan tahay oo dhanna sheegtay waana mid kamid ah arrimaha waaweyn ee soo baxaya ee dagaalka oo dhan jiladi kala daawashana qiimaha badan